إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وبعد اليوم عندنا قصة مروعة لعمير بن سعد وهي في سهد ليعتبر الناس بانت وحان دين هيا قصة الله يا بدر وحين يكون صابسنتي صحابي جليل رضي الله عنه لو يقان عمير بن سعد والي عمر بن الخطاب أيو والوها قصة داسي وحين كقادنا عبرة هذا قيمة بدر وحين يكون رميسا معنى السهد في الدنيا في المنصب في المال في دراهم سيد اللوغة ساهدو رقي الرجال سيد الدنيا مدحني مضى يشيلنكا يمالكا أيوغا ساهدين أي آخره الدورتين أي قصة داسينو صوري دونتا ولا ليال waxaa jiray meel ka mid ah imika Suuriya oo la yiraahdo Hims waa meesha ehelkeedii soo qaxay maanta ay sharaaciyada waran yihiin ilaahay ummadna kuma ciqaabo waxayna iyadu galabsanin daalin kuma salido ilaa iyadu dulmi samayso al-umma al-arabiyya fi Suuriya ma waqa alayhim illa bima kasabat aydihim reer Suuriya arab waxa ku dhacay waxay gacmahoodu galabsadeen akbar zalim kafir murtad fi al-aalam الإسلامي مثل قال لماذا أقوي أقوم مرتدين عالم كإسلام كإلهي كصليبا حافظ الأسد كان أبوه هو الذي كسح المدن حماد وغير عاصمة هواوين سوريا كيالا ونكي قريق هذا كسحية بابيي بشارنا حمبضي بالضبسك كدقي وين كيسي وحالله وصل لنا وعمل يقول سميين صومالي حتى الصدا يدخل لغتانا إلهي كواسو كله يدخل صليدي بلا حبش حلوقا قابنو الكردعية واوين أيو يدخل صليدي يعني الله توبت كان أنت كهر ريساري تاسي إمني هل كان رحمسو أمير المؤمنين با عرقا يا الدنيا دين برغيرقا تشوقا أمير بودرا وحدا ماشا سيفي عنو عدالة الإسلام كحكر مركبا ورقد بي صدران أمير المؤمنين بواشكتونيان نكن انتني وحن وياي نقبدلو نك في عنكن وبدلا maalintii dambe Umar wuxuu ku dhaartay nimayna waligood ka cabanin ayaan u geynaya Umar ibn Sa'ad buu diray Umar ibn Sa'ad markii uu ximsa istaagay ayuu dadkeedii hal xal wal aqd waxna uu xiri jiray waxna uu furi jiray buu soo shiriyay wuxuu warbar haday dhageysay ayuha الناس الاسلام حصن منيع وباب وثيق وحصن الاسلام العدل وبابه الحق فاذا حدم الحصن وكسر الباب فقد استبيح حمى الدين إسلام كبير وقلعة رفيس الباب إلا ضحي إسلام كقلعة سوى عدالة مضيئة خلق لها أبور إن عدالة لغو حكمه الله وحلقو قيبيه الله لغو قاميه وحسنك إسلامك قلعة ديوي الباب كيدنا هو حق إن قفك حق لغو قاهو هدي حسنك اللي الدميه والبابك اللي تشبيه وحال ربنا يستي سيره دينة إسلامك يا الله دعي وحاو فرع أوامرتي دبنا ددك الحل والعقد كل شقيه برسان الأمرين ويسكتغي هل سنة أيو لا جوغي هل سنة oo wareegtadu inta soo goor isla rogi jirtay amiir almuuminiin iyo cid ay ka cabanayaan ayaa cidi u soo jooq weeday Umar ibn Khattab haba yaraatay wala waahid cabariya bal waay wareer ximsa maxaa ku dhacay waraaq buu u qoray ninkii gali jiray abwaabta oo marada biduri idan ragaasi Umar ibn Khattab waxay lahaayeen Maxamed Muslimiin iyo kala kamid noqon jiray ragii saxaabada ajillada ahaa markay gobolka uu ka talinayo barasaabka xarunta barasaabka uu fadhiyo haddii wax yar lagu dareemo qaarkood buu waa lagu yiri albaabkii dadka ka xidhaan Maxamed Muslimiin dir Saad ibn Qasbaha Kufa wuxuu albaabka ku gub Saad wuxuu buu sarkay albaabkiisii oo ololaya albaabkii gobolka looga talin jiray oo gubanaya ariyaalku meeshii ku ololina waa la gubay ka soo bax fudho yaa ku dadka albaabka ka xidho yaa ku ka xidho albaabada xadiidka wada samaysateen iyo ganjeelayaal waaweyn tobanka soo dhawlo tusataan soo maaha sabaa yani saaca yani markaas dhuhr aadaan ku dhacana waa salaafaysan hadaa doontana waraaqada guriyihiina ku saxeexdaan xafiisyada leedin egmadina kama soo xaadirtaan in badan oo idin kamidi ragana adduunyada ka soo shaqeyn jiray nimayo ragana adduunyada ka soo shaqeyn jiray ka soo ololaynaya boardka soo tumaya la hadlaya iyo kaymaka markaas carshiga ku dhexgalgalanaya labadaba waa la hadlayaan deedna ninkii oo kale u diray wuxuu yiri Umayrow hadaad fadhida ka hadaad sara toogantana soo dhaqaa warqadan ku dhiibay marka ku timaado imow
عمير وحسوقاتي قربت كي وجري قبضدو يا سبرار كي بيها عبيتان كي ويسدو وجري يا دكسي مر وكو كرصدا مرنا وبليدو وكو عدا مرنا مريو كو بيد قربت كي يا سبرار كي بطنك وسوقاتي دكسينا وسوقاتي ومن حمص الى مدينه سعوديه كو تالا يا حمصه سوريا كو تالا انت يسو جيران waa taqaana nimaanta hatta hadaan dhulka marin qariirada juqraafiga wada haysa Soomaa halkaas uu lug soo qabsaday dhulkaas saxaraha oo manaha ah ayn ku eekaaday ninkaas uu gologolay nin cabbu haaye uu madoobaaday uu dubmay uu soomay laakiin wuxuu noqday asbaxa rajulan qawiyan da'asima wa iimaan nin adag oo quud iyo iimaan balay Umar buu soo taagay isagoo sidaawe tawleedkii Umar buu isku daawaday mala Umar baa iska dhaxarkay markaasuu yiri ninka Umayra markaasuu yiri oo miyaad lugeynayseeda suudaha daabad rakuuba miyaad ka weyday meeshan ku dhiibay suudaa aniguna ma weydiisanin iyaguna iimay garanin maxaad wadaa adduunyadii oo dhan baan jiidayaa buu markaasuu baytil maalka iyo bangiga maxaad ka wadaa suudaa waxba kama sida ka وهذا الدنيا سداوا maxay dharigaygi iyo sibraarkaygi iyo qarbadkiisa haydi ugu jirtay adduunyada intaasay ku doofaysaa buuri gabigeedaba intii wada waxa uu yiri Umayr markii aan tagay Xamsa waxaan ururiyay ehelkii meesha joogay kuwoodii ugu saalixsanaa waxaan u dhiibay dhammaan wixii fay qanaa'im ah markastoo ay ururiyaan shay kamidana waxaan kala tashaday meesha aan ku bixin lahaa waxaan dhigay meeshii waxa boonayd ee la amray in la dhigo waxaan ku bixiyay kuwii xaq u lahaa Umarow waanu jadiidiyay buu yiri adiga maanta hadii lagu dhaw wasiir xilka uu ka dhacay laakiin waa lagu jadiidiyay maxaa sameynaysaa xil dhibaan mar labaad baan ku dooranay hoteelada Hargeysa hareerada ku yaala baarka baad wareerinaysa siidhiga iyo dhiidhaaga gaadhiga ayaa ina wareerinaya suuqyada Soomaa hablaha ay namada dawaqinaysa ila xilkii baa lagu Umar baayri mar kale ku jadiidiyay kulluhu suulilah ya Umar wallahi la anta wala ba'dak ahad li ahad adiga iyo qeyrka toona wallahi xil u qaban buu yiri waligeena madaxu noqonay waa ummadii islaamka kitaabka ku dhaqmaysay Umar waaye maxaa doonaysaa waxaan tagayaa buu yiri tuulada ay reerkaygu degan yahay ee magaalada koonaheeda ka baxsan Madiina oo Madiina dabadeeda ah oo ogolaada buu yiri waxa uu iska tagay tuuladii reerkii afadiisu buu isaga tagay nin Xaaris la yiraahdo oo isagu sirdoonka ah waa sirdoonkiinu sidoo u shaqeeyo ma waa si ka duwan sida sirdoonkiinu u shaqeeyo orado ninkii ka daba tago haddaad aragto nin markuu gurigii tagay nimcayso barkibada dheereysana suuq hoodana ii soo noqo haddaad aragto nin oo busaaradsan oo darayeysana u dhiiburi daraahinta dabka uu imtixaamaya marka hore martii iska dhig buu yiri Xaaris dabeedna wuxuu soo martiyay Umayr wariya Xaaris ma adigi baha xaqad ka tibi Madiina muslimiintii ka waran way wanaagsan amiir almuuminiina waa saalix buu waa saxiix ilaahay uu kaalmee waxaan ogahay inuu ku jecel yahay dabeedna saddex ishuu martiyay ninka la Umayr iyo afadiisa qurs khumsi ah qabal yaroo kimisaba oo aqood 24 saacadood marna ka soo quraaco ambassador harimadana waxa tagtaa Mansoor nus saacahana anda dhaxaya meelahan si jirjid umadana xiluhay inagii baa wada hadlaynade saaxiibo tolo wada dhasho iska war hayayna annaga ba dhaliil nooma qarisaane irhaabka iyo kan taa gurtaane anta runta leedin sheegay beedam wuxuu sameeyay saddex isha uu birkii cunay ninkii martida ahaa Umayr yaa fadhiisana saddex habeen iyo saddex maalmood bay qadeen wallahi nin jiirana baa u yimi سلوريان يا حارث هذا دور سنيكر عمير يا فدي سني هاللجمان ده إسكسي شوك ماشى ورديك أنا صدق شوي قتلاين قبل كي بالسهل هذه كسينا يعني ده مش هذا ورقتين اسكيت تكتسكيت أنت عمرك الله شيء بالعكس اللي قلب الله ما يبص صاري شو رجع غبو شو روا محي أمير المؤمنين بقى صدري واحد كتر هذا أنا باهي وما قبل إذا باهي بدن سي قبل دي سبا هذا الشيء واحد عمير وهدانا الدن ولا هين هل كان بفقرات شوقي ده فقرة ما هو غيبي أنت أمركم مغلي حارث أيو قبل دي كتورة ودقاقي هذا الدميان اللي يقول عليني عمير باكا قاضي قبل دي وحاو غيبي دمان أولادي صحابة شهادتها أو شهيدي دينة الله أيو سودا غيبي همين كليا حارث با عمر وتجي عمر ومحاض
عمر بن محمد هيسا وحول والله إني وحال تجي الدنيا ذاك جوك ساهدي والظروف هذا كل دول لعكتي ما سيسي ها قصدي ودم بقول صدق حشان ومرتين ملك كم سنة أنا بيسينشري معكم سمي والله وانك جاي مقرن معي لكن هبينك واقو قبري يقولي جيسا هل درهم عمرين ما يبلي وراقبوا قري عمير مر لبعض أمير المؤمنين بيأخذ دنيا وقد أنكور ديبي gacantaha ka dhigin ilaad soo dhaqaaqdo mooyee Umar uu soo dhaqaaqay wuxuu yimi Umar hortiisa maxaad ku samaysay lacagtii aan ku soo dhiibay maxaa ka galay buu Umarow adigu soo maad soo bixin meeshay maraysa maxaad u daba taagantay ilaahay waxa kugu dhaariyay in sheeg buu waan doonayaa waxaan u qaybiyay buu faqaradii ama dadkii markaa ay taamtii shuhadada waxaan ku iibsaday markaa inaan ku badbaado yawma la yanfa'u maalun wala banuun illa man atallaha biqalbin saliim maantayna waxba tari doonin maalka iyo mansabka iyo inamadu maalintaasaan u kaydsaday buu yiri waqala ashhadu annaka min alladhina yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa hawid umar waxaan qirayaa inaad kamid tahay kuwii la yidhi waxay ka doorbidayaan naftooda wixii dheefa oo waxay doorbidayaan walaalahooda kale xataa hadday ku sugan yihiin macaluul ay gaajo aad iyo aad u daran umar wuu ooyay xaaladda uu marayo Umayrna waxba kama qaban karo waxa uu ku yiri qaado awrka raashinka iyo labada maro wuxuu awrka raashinka aan ugu ma baahniye gurigeygii 2 galaan baan kaga yimi 2 saac baan kaga yimi 2 saac waa 4 galaan oo qamandi ah markay naga dhamaadaan ilaahay risqi kale ku xigay buu noo keenay imaka soo baahnin geeridu ka soqaysa ama labada maro afadiiba arraday marii ka googo'een inay awradeedu banaanaato baan ka baqaraya waan u qaadaya كذا ka baxay Umayr بعد أيام قليلة يرتبدت Umayr ارتحل إلى الآخرة Umayr الدنيا waa ka guuray آخره guuray عمر بن الخطاب الله sheegay Umayr uu dhintay baa leeyahay laqi rabba Umar waa ooy ahbooy waxaan loo isoo Umar waxaan tamaniyay buu yiri intaas oo nin ah oo Umayr oo kala in la siiyo oo maxaad ku qabanaysaa diinta Ilaahay buu gargaaraya ya Umayr wax ku falay baad Umayr laysa عنده منصب ولا دراهم ولا شيء آخر من الدنيا يا مات عمير وحكو فلي لا أحد صاحب العمارة صاحب المال والتجارة صاحب المنصب البابدودة كوا فوقيدا كجرة يكوا مركزي كنشالك كجرة لعقتها هيستا تجارة يكوا مدحدة مناصبتها هيستا أي البابدودة بلا آدم كهر دوبيه mid Umayr oo kala maanta haduu warku doono sheego idisaan ma u eegayso hadii maanta waxaynu u baahanahay amaanadan dayacantay ehelkeedii kuwan u ahaa mansabkii xilka waxa loo dhiibi jiray kuwa ka sii cararaya inamadan maxay doonayaan inamadan beelaha wareeriyay meel walba boorka ku dhajiyay hebel la tartamayo inan bay beesh soo dooratay mid kala ka daba sharaxday oo ka shiri maroodaanay oo wareejiyay baa mid saddexaad baa yimi labadii hore ba ka guurbay noqotay mid afraad baa yimi waa la isku haystaa xiraan ma wadankay u hiirinayaan ma wadankay horumarinayaan ma beeshay u nasteexaynayaan ma diin islaam bay u dirirayaan war maxay doonayaan iyaga soo weydiin doonaan anigu ka jawaabi maayo iyaga soo weydiin doontaan anigu kama jawaabayo inamadan sharaa'iga haysta iyo tijaarada hablihii inantay ka quruxda badantay intay soo qaawiyeen baarka u sameeyay wareergayso miyaydaan xishoonayn in lam takun diin wa islaam alaysa hunaka shahamatu ar-rujula warraganimadii meeday hadaa diin weydeen aqligi me hadaa waracnimo kala weydeen hablaha yaree quruxda badan aabayaal meel dhalin ragmeel la walaalahayn ee la iibsaday shirinka lagu iibsaday ee boorarka waaweyn iyo qurux badan oo qaawan sakaarkooda iyo garabkooda iyo wajigooda muuqdo xagee ka yimaadeen ee shirinka lagu doonayo la isku xayeysiinayo maxay rabaan ragaas iyaga soo weydiiyo waxay rabaan nabigu wuxuu noo sheegay calayhi salaatu wasalaam waxa la weydiiyay mata saaca qiyaamadu goormay dhacaysaa ya rasuulallah wuxuu idaa usida al-amru ilaa ghayri ahli fantadir saaca marka talada iyo loo dhiiba arrinka ummadda horfadhigeeda cidaan ehelba u ahaynba markaas uu qiyaamu dhacaya qiyaamu maanta dhacaya marka wabillahi ta'ala tawfiq subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha